بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa magaalada Gaalkacyo waxaan rabnaa halkaan inaan kala hadalno madaxweynaha dawladda Puntland iyo wasiirka waxbarashada dadkana u jeedaan waa dadka naafada ah oo dhagoolayaasha ah oo intaan iyo saddex jibaarkeed magaalada joogaan waxaa jira dad badan oo aan aysan ishaleelin maanta oo gabdhaha jira guryaha jooga dadka yaryarka oo dhalinyarada waa naafo waxa way waxbarashada ma haystaan waxay ka cabanayeen maanta oo annaga noo wakiisheen inaan u hadalno una gudbino madaxda dalka u sareyso oo madaxweynuhu u horeeyo iyo wasiirka waxbarashada madaxweynuhu maadaama uu Gaalkacyo joogo waxay codsadeen madaxweynuhu inuu la kulmo oo qaabilo oo baahidooda dhageysto dadkan waa dad naafo ah waxaana la weydiinayaa mas'uuliyadda dadka u sareeya wadanka markaas ama ha noqdo baha waxbarasho ama ha noqdeen dadka ummada xukuumee waxaan codsanaynaa anaguna baaqooda ku biireena dadkan in la qaabilo waxbarasho firiyaan ay helaan waxa maanta ay raadinayaan qofka uu ku noolaan kara waa waxbarasho inay helaan qayb baan farta qori aqoon qayb baa farta kaliya taqaana waxay noo sheegeen hadda ka hor in waxa weeye talaabo fiican oo waxa weeye baahidooda aysan helin oo waxa weeye ama cid ka garaabta ay yadhahay waxaan codsanaynaa anagoo afkooda ku hadlana wakiilna ka ilmaha saqiirka ayagoo aad u jeedaan iyo raggaas dhalinyarada oo iyo gabdho badan oo xaafadaha jooga inay waxa weeye ay helaan waxbarasho ay helaan aad iyo aad baan u codsanaynaa sida ilmo walba inuu waxbarasho free helo looga fakarayo oo waalidkiisa uga fakarayaan baa waxaan rabnaa dadkan masaakiintaana inay helaan school free oo waxbarasho oo waxa weeye meel kasta oo school baa ku yaala haddana aan lahayn qaybtii dhagoolayaasha wasaaraddu maanta waxaa xariga laga jaray guddoonka quruxda badan ee wasaaradda waxbarashada maanta oo school laga jaray wasaaradda waxbarashada xariga guddoonkii xafiisyadoodii iyo waxa kulmay baahidoodii maanta waxaan codsanaynaa dadka in baahidooda laga jawaabo madaxweynaha dawladda Puntlandna waxaan codsiga ku biireena inuu qaabilo madaxweynaha rabtaan Soomaaliya madaxweynaha rabtaan inaan la qaabishaan madaxweynaha rabtaan Soomaaliya waxaan codsanaynaa codsigooda dadka masaakiinta in loo qadariyo madaxweynaha rabaa inay arkaan madaxweynaha rabtaan ha waka codsigooda waka madaxbarashada waxbarasho waka waxbarashada waxbarasho baahidooda in laga jawaabaan codsanana inta walaalo wuxuu leeyahay afar kamida waa walaalo caruurahan afarta iyagoo saas oo ay walaalayihiin haddana waxbarasho ma haystaan marka waxaan codsanaynaa in codsigaas aad loo bogaadiyo waxbarashay rabaan dadkaani